Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada saaxiibayaal. Halkaad iga daawanaysaan ama aad igala socotaan waa YouTube channelkayga iyo Facebook pagekeygaba. Haddii ay tahay markaa ay kugu horeysay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta igaga xiran pageka iyo channelkaba. Haddii aad hore u joogi jirtana waxaan idin leeyahay isku soo naqad wanaagsan, minikiina waaye. Maanta videoga wuxuu ku saabsan yahay ama sidii aan hore idinkaga ballan qaaday, waxaan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo qaabka loo xareysto looteriga anigoo mid u sharxaayo, tusaale ahaanna aniga isku xareynayo si aad maaragtay u fiirsataan oo aad gacmihiin ugu xareysataan. Ujeedka muuqaalkaneetu wuxuu yahay in maaragtay aadan dhihin ii xareey ama aadan baryin qof bini aadan ah sanad walbo maaragtay markii haddii aan lagu select gareyn ama aan lagu dooranin si aad sanad walba u xareysatid. Kasoo qaad sanadkan aniga kuu xareey lagumaana dooranin, sanadka dambe inaadan igu soo noqonin oo aadan dhihin Cabdallow ii xareey. Waa wax iska easy ah, simple ah, taleefankaaga ka xareysan kartaa, laptopkaaga ka xareysan kartaa. Muhiimadu waa in aad haysatid internet kaliya. Marka isla socod wanaagsan videoga sidaan u xareynayo muxuu ahaa TV lottery qaabka loo xareeyo halkan kala soco insha Allah. Haddii aad maaragtay videoga aad daawanaysan waxaan kaa codsanayaa inaad like noo saartid oo aad maaragtay muxuu ahaa asxaabtaadana la wadaagtid insha Allah. Wixii su'aal aad qabtidna commentiga noogu qortid. Like iyo commentigaba dhiirigelin ayay noo tahay. Aad idin salaamaya, isla socod wanaagsan. Waxaa tagaynaa meesha Google-ka, kadib waxaa ku qoraynaa DV lottery. Kadib page-kan ku keenaya. Page-kan markuu ku keeno waxaad dooranaysaa midka ugu horeeya ee electronic diversity visa programka. Click markaa siisid page-kan ku keenaya. Page-kan markuu ku keeno waxaan oo dhan u baahanid waxaa u baahan tahay entry form-ka meeshaan cagaarka ah begin entry. Haddii aad rabtid example photo-da daartid inaad fiirsid meeshaan ku dhufanay instruction-ka daarabtidna kaasa ku sii dhufan kartaa, balse anaga waxaan rabnaa inaan DV lottery xareeno marka begin entry yaa leenahay. Begin entry markaa dhahno wuxuu ku siinayaa muxuu ahaa code-kan. Hadba code-kan meesha soo kugu qorayan waa inaad gelisid. Haddii ay xarfo waaweyn ay yihiin, xarfaha waaweyn aad ka dhigaysaa. Haddii xarfo yar yar yihiinna, xarfo yar yar aad ka dhigaysaa. Marka waa xarfo waaweyn waaye. Caps lock shidane sida uu qoran tahay meesha u gelinaysaa. Haddii aad khaladid asagaaba kaa celinayo ku dhahayo waa khalad ku celi, mid kale oo ku siinaya hadhow markaas insha Allah. Si fiican uga fiirso, submit dheh, kadib wuxuu ku geenayaa page-ka saxda ah. Sida hore ugu soo sharxanay shuruudaha muxuu ahaa 14 qodob ee laga rabay halkan ku buuxinaynaa ilaa meesha ugu hooseyso waa kana 14 qodob. Marka qodobadaaneeto kuwa qaar ah waa optional haddii aad rabtid maaragtay buuxin kartid aragtidna waa buuxin kartaa. Marka waxaa ka bilaabeynaa last name ugu horeeyo. Dadka qaar waxay isku qaldaan meeshaan ugu horeysa magacooda koowaad ay geliyaan. Akhriya meesha last name ku qoran. So last name ka dhiganaysaa. Marka aniga tusaale ahaan maadaama this is not magacayga ma aha waxaan information ka gelinaan information-kayga ma aha waa tusaale ahaan idinku siinoyaa. La socda haddaba marka adiga hadhow markaa buuxsanaysid oo aad maaragtay aniga videoga u sharxaya raacaysid wax saxan aad gashanaysaa. Last name waxaa kuu ah wixii adiga kuu ah unbaa gelinaysaa. Ani waxaan ka dhigayaa Ali. First name waxaan ka dhigayaa Abdullahi. Middle name waxaan ka dhigayaa Omar. meeshaasaytu waa ii buuxsan tahay. Marka middle name haddaa ratid waa iska dayn kartaa. First name haddaa ratid waa iska dayn kartaa. Kuleeya muhiimadu waa last name ka u ah dadka. Balse adiga Soomaaliya tahay magaca koowaad, magaca aabaha iyo magaca awowga saddexdaas bedeli. Meesha markaa imaatid male iyo female. Gabar haddaa tahay gabar ka dhigay, wiil haddaa tahayna wiil ka dhigay. Marka ani male aan leeyahay. Taariikhda dhalashada ku soo hartay saddexaad. Haddaba taariikhda dhalashada magaca aad gelinaysid waxoo dhan waa inaad xasuusnaatid. Hadhow hadduu kuu soo baxo magaca meeshan kugu qoran iyo baasaboorka hadhow maaragtay aad safaaradda la tagaysid waxa dhan waa inay iswada lahaadaan. Please hadalkayga si fiican u dhageysta. Haddii aad shahaado haysatid koley qof shahaado ugu yaraan high school haysto xareysan kara barnaamijkan. Shahaadadaada magaca soo kugu qoran iyo taariikhda dhalashada ay kugu qoran tahay ku xareyso.
marka meeshaan waxaa leenahay 01 soomaalida badana 01 kaas la iska qortaan anagana inta la gelinayna 1999 aan leenahay magaalada ku dhashtay Mogadishu aan leenahay and then kadib waxaan imaanaynaa wadanka Soomaaliya waaye meeshaaneeto mar walba yeese ku ahaanay because Soomaaliya waxay ka mid tahay dadka loo ogol yahay inay xareystaan and sawirka haduu kaa khaldan yahay asagaa ku soo celinaya sawir oo khaldan maba qaadanayo website-kan marka ana sawirkaygu wuu diyaarsan yahay waxaan tagayaa hadba meeshuu igu jiro desktop-ka duu ku saanay desktop aa dhehe downloadska duu kugu jiro downloadska dhehe marka ani downloadsku igu jiraa qaybta downloadkan tagayaa sawirkayga waa kaasaa inuu sawirka ku saxan yahay waxaa ka arkaysaa meeshaan dimensionka 600 times 600 laga rabaa haddii uu sawirka khaldan yahay kaama qaadanayo uu ka diidayaa upload aan leenahay horaan usii soconaynaa address in care of optional waaye waa ka tagaynaa meeshaas ma buuxinayno xataa meeshaan markaa joogno Mareykanka markaa joogno xataa meeshaas lama buuxino because waxa lagu buuxinaa ilaa hadda ma fahansaniba ba optional waaye wixii optional ka tag ha isku dhibin address line 1ka waa idinku soo celinayaa Soomaaliya addresskeeda accurate ma ahan soo marka wadada xaafadiina ugu caansan ku buuxso aniga Madiina ka imaaday Madiina wadada ugu caansan waa Jaalasiyaad Street laamiga weynka waxaan iska leeyahay 10 Jaale Siyaad Street saasa uga baxay siriga waxaan leeyahay Mogadishu district wadajir ka dhigi karaa country Soomaaliya ka dhigi karaa meeshaan preference i state banaadir ka dhigi karaa marka ani meeshaan maadaama aan Muqdisho xaggaas ku soo buuxiyo wadajirna marabo wadankeena marabo wadanka hoostaana country ugu qoran yahay marka waxaan ka dhigayaa banaadir postal code ma ahan 252 ga numberka ma ahan postal code ma heesana anaga ama zip code ma heesano soo marka waxaan leeyahay no zip code option kaas la siiyay country-gana Soomaaliya ka dhigaya country where you live today marka meeshaan la isku xistaa meeshaad ku nooshahay iyo meeshaad ku dhalatay way kala duwanaan kartaa marka haddii aad Soomaaliya ku dhalato oo Kenya joogtid Kenya ina ma aragto ku nooshahay ku qoray meeshaan soo marka ani hadda waxaan iska dhigayaa qof Soomaaliya ku nool Soomaaliya joogaan leeyahay phone number-ka waa optional waa ka tagayaa phone number ma gelinayo hadaa haysid phone number geli adiga phone number-kaaga fahante emailka qasab waa email ku shaqeynayo oo aad taqaanid geli waa ku celinaya meeshaan email saxan oo aad taqaanid geli ani hadda email oo ma aragtay shaqeynaya maaha waxaan example leeyahay hadhow ma aragtay wuxuu noqon doona ma aqaani balse tusaale ahaan idin sheegoyaa markay qaybtan confronta haddaad wax xagga aad gelisan baa laga rabaa so haddaa qaladid hadhow wuu kugu soo celinayaa oo wuxuu ku leeyahay waxbaa kaa khaldan marka si fiican u fiiri qaybta waxbarashada imaanayna qaybta waxbarashada highest educational level laga rabaa tusaale ahaan waxaad tahay nin bachelor degree haysto bachelor degree aad ku dhufanaysaa university course only waxaa haysataa kaliya high school degree aad gelinay labadan ugu korayso primary horta iska low because isaga soo qoreen marka meeshaan rabo inaan sharxo waa meeshaan you must have a minimum of high school diploma korkaan waxaa kugu qoran primary school only iyo high school no degree high school no degree ganet waxaa loo ogol yahay dadka haysto shaqo experience or mujeda meeshaan waxaa ku qoran be skilled worker in occupation that requires at least 2 years of training or experience to qualify marka haddii aadan wax shahaado aadan haysanin oo aad xirfad leedahay high school no degree leedahay hadhow markuu kuu soo baxo safaaradda waxaa la tagaysaa waxay aad xirfad u lahayd oo aadna ka dhigtaa inaad ma aragtay xirfadaas aad lahayd 2 sano iyo wixii ka badan marka ani hadda meeshaan waxaan leeyahay high school degree inaan haysto
ardayda jaamacadda dhigato high school waa soo dhammaysteen jaamacadda dhigataa waxaad dooraneysaan some university courses hadhow hadduu kuu soo baxo safaaradda waxaa geenaysaa warqad jaamacadda ah kasoo qaaday oo saxiixan wasaaradda arrimaha dibadda ah kasoo saxiixdid iyo shahaadadaada high schoolka warqadaas waxay caddaynaya inaad jaamacad dhigatid hadba semesterkaa maraysidna aa ku qeexdaa waxaan rajeynayaa inay fahamteen what's your maxaa la dhahaa your current material status waxaa leedahay haddii aadan guursanin unmarried haddii aad reer leedahay iyo muxuu ahaa haddii aad reer leedahay oo xaaskaaga ama maaragta xaajigaaga ay aysan ahayn American citizen or muxuu ahaa green card ay haysanin kaas adigana aad click siinaysaa haddii aad xaaskaaga ama xaajigaaga ay Mareykan ku nool yihiin ama uu ku nool yahay oo maaragtay US citizen uu yahay ama green card u haysta hadda kasoo qaado kaleeta ani kaba soo qaad xaajiyadeeda xamar ay joogtaa inay loo xareystay rabtaa waxay select gareene married and my spouse is US citizen or US lawful maxaa la dhahaa permanent resident kaasay dooranay balse haddii labada maaragtay ani aan meeshan joogin xaajiyadeeda rabta inay xareysatana married xaajigeygana Mareykan ma joogo and divorce haddii aad maaragtay xaajiga ama xaajiyad kala tagteen widowed haddii maaragtay muxuu ahaa lagaa dhinta waa agaas legal separatity aad maaragtay tan iska un maaragtay muxuu ahaa furitaankii oo kale divorce oo kale waaye bas aniga meeshan waxaa select gareynaa unmarried numberka 14aad unmarried ahaan dhahay so 0 waa jil dareenka waa dhameys waaba intaasba waxaa lagu sheegayo dhan kadibna continue waa leedahay continue markuu ku dhaho pagekan ku keena sawirkaaga macnihi waa ku saxan yahay wax walba ku saxan yihiin waa kadib waxaad maaragtay iska saxaysaa waa jeeg gareynaysaa intaadan submit dhihin waa jeeg gareynay wixii aad soo buuxisa waa waxaan oo dhan kadibna waxaa leedahay meesha ugu dambeysa submit warqadaan oo kuu soo saaraa warqadaan markuu kuu soo saaro waxaad maaragtay aad muxuu ahaa waa daabacane ama email ku tirsanay warqadaaneed hadday kaa dhunto waa soo celin kartaa the only reason aad ku soo celin kartidna waxay tahay waa inaad email saxan aad haysataa haddaba warkayga si fiican u dhageysta emailkaaga waa inuu shaqeynayo oo aad passwordkiisa haysatid si warqadaan hadday kaa dhuntaa u soo ceshatid waa intaas kaliya warqadaan daabaco oo meel dhigo screenshot ka qaada taleefanka xareynaysid haddii aad maaragtay kii aad ka xareenaysidna computer sawir ka qaado ama email ku dirso ama daabaco marka waa intaas un guul ay idin rajeynaa dhammaantiin waa tahay sidaad wada aragteen wax sahlan ayuu iska ahaa wax adag ma aragteen haddii aad wax adag aragteen oo aad su'aal ka qabtaan commentiga noogu soo qor insha Allah sidoo kale waxaan idinka codsanayaa muuqaalka idinkoo aynan dhameysanin inaadan su'aal soo qorin tusaale ahaan muuqaalkii hadda ugu dambeeyay aan soo geliyay oo aad shuruudaha ku sharxaayay dadka ayagoona shuruudihii aana dhameysanin su'aal i weydiinayaan su'aasha i weydiinayaan video aan ku sharxay marka wax dhageysiga iyo dulqaadka hala badiyo wax si fiican u dhageysta insha Allah muuqaalka xiga insha Allah waxaa ku soo gudbin doonaa dadka lamaanaha ah sida u xareystaan ama dadka caruurta heesta iyo lamaanaha aabo kulay dad lamaane ah oo aan caruur heesanina jiraan iyo dad lamaane oo caruur heesto marka waxaan ku hor bilaabi doonaa dadka lamaanaha sida u xareysanayaan kadibna waxaan ku xijin doonaa dadka lamaanaha ah ee caruurta heesta barnaamijkaneeto isdadejinin waqti waa haysataa ayaamahan ina soo geli waa rabay reasonka aan soo gelin waayna wuxuu ahaa website-ka dadkii oo dhan aad ku wada jiro 10 milyan ilaa 12 milyan hal mar website ku jirto stack uu noqonayaa waxba kaama qaldan dadka qaar website-ku ay furmila yahay website-ka uu iska keeso tufaya waqtigii igu cariirinaya waa caadi waqtiga haysataa ilaa November 8 uu furan yahay marka tartiib insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wada fahanteen oo aad ka wada bogateen aad idin salaamaya sida waanay maaragtay aad ii dhiirigelinaysaan waa ku mahadsantihiin waa videoga xiga insha Allah ayno balanaa duu ilaa yiraahdo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh